السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalaha ku xiran channelkeena Samagaraad waan salaamo dhamaantiin ba maxay muhiim u tahay inaad maanta baratid xirfadaas oo aad dadkaaga iyo dalkaaga baad ku anfacsid iyo naftaadaba intaana kula wadaagin xirfadaha muhiimka aan kula wadaago dhacdo yar oo ku saabsan xirfada skills-ka ee kuna soo dhawaada waxa dhacday in duuniya cilad ay ku soo gaadho meel bari ah naaqodayaashii dunidu waxay isku dayeen inay hagaajiyaan dunida laakiin way ku adkaatay arintaas waxay raadsadeen dadkii ugu khibradda badnaa hagaajinta duniya taasina ilaahay waxba kama qorin iyaguna way ku guul dareysteen hagaajinta dunidaas iyagoo naaqodayaashii quus ay taagan yihiin ayaa waxa dunida soo agmaray nin socota ah kadibna ku soo dhawaaday dunida wuxuu ogaaday in dunidu ay cileysan tahay ciladna haysato wuxuu la hadlay naaqodayaashii oo ku yiri dunida ma idin hagaajin karaa hawaad hagaajin kartaa ayuu naaqodayaashii ay ku jawaabeen iyagoo la yaaban sida ninkan qariibka ah uu hagaajin karo dunidii horeba khibradii aqoontu lahayd ugu qusteen ninkii waa uu soo fuulay dunida waxayna tuseen mashiinka dunida wuxuuna jeebka kala soo baxay dubayar kadibna uu ku qaraacay mashiinkii kolba meel kamida mashiinka ayuu u fiirsaday ugu dambeyntii meel kamida mashiinka ayuu qaraacay markaasuu mashiinka meel kamida uu arkay inuu bool yar uu ka dabacsay boolkii ayuu ku giijiyay boolkii markuu ku giijiyay ayaa waxa dhacday inuu naaqodayaashii dunida ku dhaho bal imika daara dunida kadibna markii la daaray waaba mashiinkii guuxiisii mashiinka guuxaya dadkii yaab iyo amakaad bay u go'een iyagoo la yaaban sida ciladan haysata dunida ay u fududeed iyo ninkan aanayba ka muuqan calaamada cilmiga haddana ciladii helay oo waxay weydiiyeen sidee ku garatay cilada dunida haysata wuxuu ku jawaabay waa xirfad skills ninkii waxay weydiiyeen naaqodayaashii dunida imisa lacada ayaa doonaysaa waraaq yar ayuu jeebka kala soo baxay markaasuu ku qoray $1 oo kaliya waxa la weydiiyay oo sidee ma 10 daqiiqo ayaad $1 ku doonaysaa aqligal maaha bal noo sharax bay ku dhaheen arintaas waraaq kale ayuu jeebka kala soo baxay wuxuuna ku qoray $1 waa qiimaha dubaha 999 oo garashada meesha ciladu ay ka jirto halkaasuna ninkii ku helay $1,000 oo u baahnaa dadkiina uga faa'iideeyay xirfadii ee uu garanayay waxa jira dad yidhaaha xiriir kama dhaxeeyo guusha iyo aqoonta maxaa yeelay guushu waa iska nasiib waxa jirta maamaha carbeed oo tiraahda nasiibo isi badano igu tuur taas oo macnaheedu yahay hadduu nasiibku ila jiro waxaan helayaa dariiqad aan ku badbaadayo laakiin aan ku sheegay haddii aad badda isku tuurto adigoo wax dabaala garanayn waxa ku kala goonaya oo cunto macaan u noqonaysa yaxasbadeedka badda ku jira marka horanin hadduu nasiibku ila jiro waxaan helayaa waxaasi waxa ana ku oranin qof guuleystay nasiibka ku saaciday waxba nasiibku mu saacidin ee uu ku dadaalay waxa uu ku guul gaaray wax nasiib la dhaana ma jiro wax walba waa dadaal iyo baaba qoraaga caalamiga James Rohn ayaa wuxuu yiri aqoonta jiritaankeeda iyo la'aanteedu mustaqbalkeena ayay samaysaa macnaheedu waxa weeye kolba aqoontaadu inta ay leeg tahay ayuu mustaqbalkaaguna ku xidhan yahay Bacon wuxuu yiri isaguna aqoonta lafteeda ayaa awood ahba markasta oo ay aqoontaadu kor u kacdo dadka waad ka dhex muuqani waxna waa lagu weydiinayaa waxna dadka wada uga faa'iideynaysaa halkan waxaan kuula wadaagayaa xirfado muhiim ah oo Soomaali oo dhan u baahi qabto calan kastana ha hoos timaade oo Soomaali oo dhan u baahi qabto waliba dadka ku nool Somaliland iyo Soomaaliya gaar ahaan dhalinyarada haddaba xirfadahan iyo hoos qaad waa kuwan inoo dul marana oo waqtiga ilaalinana xirfadda koowaad waxa weeye beerashada waxa la yiri haddii ummadu laba haysato labadaana si wacan uga faa'iideysato ummadaas oo ummad horumartay haddaba labadaas waa maxay waa waqtiga iyo dhulkeeda haday ka faa'iideysato ee nabaadka ku jira ay soo saarato hadduu shidaal yahay hadduu beerashada yahay ay wax ku beeranayaan haday ka faa'iideysato iyo waqtiga uu yahay nimcooyinka ugu waaweyn Ilaahayna siiyay marka labadaas soo sheegnay Soomaalidu way ku liidataa dhalinyaradeena muhiimadda gaarka ma siin waxaad arkaysaa dhalinyaro badan oo waqtiga
tiktoka ku luminaya rag iyo dumarba waqtigooda ku lumina tiktoka waxaad arkaysaa xirfadda beerashada aan ka hadlayno dhalinyaro badan oo aan garanaynba oo lagu mashquuliyay physics iyo chemistry hadhow shaqo ku heli maayo dadkiisina waxba ugu qaban karin maayo marka waxaa ka wacan inuu barto xirfadda beerashada siduu dalkiisina uga faa'iideeyo oo wax ugu soo saaro dhirtaana uga soo saaro marka xirfadda beerashadu tusaale cad baan ku soo qaadanayo oo cadeynaya in baahi weyn u qabno tusaalahaas waxa weeye Somaliland khudradda u timaada ama khudradda ay ku nool yihiin waxa weeye khudraddaas boqolkiiba 99 waxa uga timaada Ethiopia hadduu dagaal u dhaco Tigray iyo Ethiopia islaayaan Somaliland khudraddii ay soo dhoofin jireen way joojiyaan marka Somaliland dadka ku nool inay baraarujinaadaan weeye dhalinyaradu waliba waxbayna laga mashquulin chemistry physics barta 4 sano maadooyinka aad baranaysan waxa ka wacan xirfadda beerashada si wacan u baratid oo dhulkiina aad ka faa'iideysataan ummad dhan oo dhul haysata biyo haysato haddana waxba soo saareen kareen waa ummad maxay ku tilmaamaba garmayno waana mushkiladda maanta inaasida xirfaddeena labaad waxa weeye caafimaadka wuxuu ka mid yahay nimcooyinka ugu waaweyn ee Ilaahayna siiyay hadduuna qofku caafimaad haysan lahayn waxba ma ahaan lahayn haddana imkaan oo caafimaad haysan lahayn hadal codkan kuma soo duubi lahayn muuqaalkana ma daawan lahayn waxaan ahaan lahaa qof dhul yaala caafimaadku wuxuu ka mid yahay nimcooyinka waaweyn ee Ilaahayna siiyay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala xanuun kasta wuxuu soo dejiyay dawadiisa xanuun aan dawo lahayn ma jiro haddaba isku day xanuunada Soomaalida naafiyay oo danyartii ku dhacaysa inaad si wacan u baratid waxaa jirta dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo caafimaadka sanad dheeli ka qalin jabiyay jaamacadaha geeya Soomaalida haddana aanan xanuun rabbaaniya oo qof xanuun rabbaaniya ku dhacay aanan daweyn karin oo oranaya dalka dawadiisa ha loo qaado dalka dawadiisa bal tusaale inta badan wax loo qaataa bal caafimaad baad soo baranaysay caafimaadka baranaysa bal waxaad u baratay inaad wax ku cuntid oo dawooyinkuna aad iibisay dawooyinka dalka loo soo dhoofiyo mise waxaad u baranaysay inaad dadkaaga aad ku caafisid oo xanuunadaad baadhid marka waxaad arkaysaa dhalinyaro badan oo odhanay xanuunka garamayno dawadiisa dalka dawadiisa loo qaado ama Ethiopia loo qaado ama Tukriya loo qaado marka waa ayaan daro caafimaadkana si wacan loo barto haddii kale faraha laga qaado runtaan uu ka hadlaya haddii aanad baranaynin oo si wacan u baranaynin maxaad waqti ka luminaysaa waxaan arkay wiil Soomaaliyeed hadalka imkaan leeyahay ku noqolay odhanaya waxaan leeyahay maalinta qiyaam waxaan arkay wiil Soomaaliyeed oo yiri caafimaadka waxaan u baranayaa inaan ku shaqeysto inaan wax ku cuno inna lillahi wa nahay marka arrinka kaale imika caafimaadka waxaan u baranayaa inaan wax ku cuno hadhow markuu uu bartaba tusaalaanba uu bartaba oo farmasi u dhex fadhiisto dawooyinkii dadku ku socodsiinayaan muhiimadiisu waxa weeye inuu lacag helo sidoo lacagtii uu helo dawooyinku ku socodsiinaya dadka marka waxa muhiim ah inaad wax u barataan in dadkiina ku anfacdaan marka waliin waxa u baranina in shilimaad hesha shilimaadkan aad ku fikiraysid hooyada ayaa baahi ku siin kara adigu aad heli kartaa marka walaal caafimaadka dad baranaysid si wacan u barto oo dadkiina wax ugu qabto kumanaan xanuuno oo Soomaalida dhexdooda ku dhacay ana dawo loo waayay baa jira oo dadka ku dhaca oo Ilaahay dartii hadhowna uga baxa marka caafimaadka si wacan loo barto taasna waa taas xirfaddeena saddexaad engineering waxay ka mid tahay xirfadaha ugu qaalisan oo wadan kastana maanta uu ka hormaray xirfadda engineering haddaad baratid waxaan hubaa inuu dalkaaga u bilixsanaan qurux badan noqonay xirfadda engineering waxay dhisaysaa qaabka biriishada qaabka wadooyinka waxaad arkaysaa geeya Soomaalida markuu roobku doo in biyaha fadhiistaan biyahaasoo xanuuna ka dhalanayaan sida xanuun kanaaca ka dhalanaysa biyi hadday 20 cisho hogaayo dhex fadhiyaan marka waxa muhiim ah xirfadda engineering inaad si wacan u barataan waxaana jira dhalinyaro barta xirfadda waxaad u barataan sida wadooyinkiina aad u dhisi lahaydeen xirfadda intaad baratid bad dawladda u tagaysaa waxaad oranaysaa sida wadooyinka loo dhiso aad iyo aad baan u aqaana waxaan doonayaa inaad iga caawisaan oo dadkii waxaan u qabto
marka ugu garab istaadaad oranaysa lagu garab istaagay laakiin dawladdu waxay laadahay cid dhista marmar yaro daamura inay ku shubaan iyo jay marmarka dhow daldalaacaya xirfadaas waxaan kula talin lahaa dhalinyarada maadaama aad ku badantiin sida xirfada caafimaadka oo kale inaad si wacan u barataan dalkiinana aad ku dhistaan xirfada inta muuqaalkan waan dheereeyaan filaya laakiin waa muuqaal waxtar leh muuqaalka share gare oo dad badan gaarsi intan muuqaalka xiga isugu imaan waxaan iga tagayaa dhammaantiinba asxaabta ku xidhan channelkeena Samagarad wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh